dagaalkan saaka Malaysia ka tirsan dadka deegaanka ayaa waxay weerar ku soo qaadeen dad reer guuraa oo eriyadaas u naqahaan u aaday oo degay oo awal dadkii deegaanka ahaa Malaysia ka timid dhinaca Ethiopia ayaa weerarkaas soo qaaday waxaana la sheegay khasaaro ilaa 3 qof oo dhimasho inay soo gaartay kadibna dadkii deegaanka deganaa ayaa maaragtay istifaac sameeyay ilaa haddana wararka aan ka helayno eriyada Baxandale waxay sheegayaan in uu dagaalku weli socdo laakiin ilaa hadda faahfaahin kama hayno khasaaro intuu loo yahay. waayahay marka dagaaladan sidee bay ku bilowdeen maxaa khasaaraha oo ka dhashay inta la ogyahay? saaka xilli hore ayaa Malaysia ka soo duushay dhinaca Ethiopia gaar ahaan deegaanka Baxandale oo horay dadkii deganaa looga soo barakiciyay waxay weerar ku soo qaadeen dad reer ah oo halkaasi naqa u aaday una deganaa waxaana la sheegay khasaaraha ilaa hadda intaan hayno dhinacayaga waxa weeye 3 qof oo dhimasho waa gartay marka hadda waxa leeyahay dagaalo goos ayaa ka socdo aagaas bal faahfaahin naga sii sidee buu xaaliyahay wixii ka dambeeyay markii weerarkaasi uu dhacay waxa bilowday dagaal falqafoola ilaa haddana uu socdaa dagaalkaasi oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan awal shintri ayay ahayd laakiin hadda waxaa la sheegayaa in gaadiidka dagaalka uu hadda maaragtay qayb ka noqday dagaalkaas marka wixii faahfaahina oo arrintaas